gurigani waa meesha uu ku soo barbaaray kuna dhashay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana ku yaalaa waaxda Oktoobar ee degmada Waaberi tan iyo markii la doortay Farmaajo 8 Febraayo 2017 gurigan waxa uu ka noqday degmada mid laga yaqaan oo la isku tilmaamo mar madaxweyne Farmaajo uu soo booqday degmada Waaberi waxa uu sheegay inuu ku dhashay degmadan isagoo soo bandhigay qoobka ciyaarka reer Waaberi caanka ku yihiin meesha soo sheegay yariso meesha ku dhashay way maama Culey Maxamed Aadan oo ah haweeneyda lagana ixtiraamo Waaberi waxay dib u celisay xasuusteeda waxayna ka sheekeynaysaa wax ay ka taqaano qoyska madaxweyne Farmaajo gurigoodii hal boos oo ahaa markuu dhibaatada dhacday gurigii baacu gale waa la kala gooyay qolo intay gadata iyaga waa guureen oo dibadda ay aadeen markii horena waxay isagoo yar waxay soo galeen ijaaray u soo galeen wuxuu ahaa cunug firfircoon alla hadaaye oo aad u ciyaar badan oo dhalinyarada iyo madaxda si fiican u xiran markay iskoolka soo baxaan ama quraanka ay ka soo baxaan waxay iigu imaanayeen banaankaas meeshan wax ku siin jiray ilmaha dhan sida hadda kuwan ay ii jecel yihiin bal fiir inta ilmooda safan say ii jecel yihiin oo ii jeclaa isagoo dhalinyaro ah ayuu ku xirnaa saraakiil iyo madax sarsare oo ka tirsanaa dawladdii Maxamed Siyaad Barre inta badan iyaga ayuu waqti la qaadan jiray sida uu iga warramay Mustaf Suufi Abuukar oo Farmaajo arki jiray iraantiisii mudan horta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin aad u weyn oo magacna leh nin la yaqaan weeye ku dhashay degmada Waaberi kuna barbaaray isla markaas xaafadda laanta Oktoobar Farmaajo wuxuu ahaa nin shakhsi ah isla markaasna karti iyo dadaal mudan leh dad fara badan oo waa jiraan hadda oo hadii iga ag dhaweyn oo isku dugsi ay ahayn waa jooga anigana da'deedaasi waa la socday intaas kadib Farmaajo wuxuu ahaa dad ku xiran madaxda sarsare ee dawladda ka hay xilka waaweyn way argilmada hadda uu haystay dadkaas ayuu ka kororsaday kadibna wadanku isaga tagay wuxuu aaday wadanka Mareykanka ayuu khibradiisa ku soo kororsaday kadibna wadanku yimid madaxweyne ayuu noqday Farmaajo nin dhalinyaro ah shakhsiyadiisa xataa isboorti ciyaar jiray kubaduna la ciyaar jiray iskool booliisiidana ku ciyaar jirnay shakhsi gaar ahaaneed ayuu ahaa oo aad u wanaagsan gudoomiyaha degmada Waaberi Dr. Cabdicasiis Cismaan Jaamac ayaa ka warramay dhaxalka ay dugsadaan reer Waaberi ee kula taariikhda aan la ilaawin degmada Waaberi dad badan oo caan ah ku dhashay ku faraxsan madaxweynaha Soomaaliya ku dhashay degmada Waaberi xogta ku heena madaxweyne koowaad Soomaaliya soo maro caasimadda Muqdisho ku dhashay inuu yahay aan qiyaasayna aad aan u faraxsanahay waaxda Oktoobar ku dhashay anina gudoomiye ahaan aad aan u faraxsanahay madaxweynaha Soomaaliya degmada ku dhashay inaan maamulayo oo aan dadkeedii mas'uul ka ahay aad aan u faraxsanahay dad badan oo taariikhdiisa yaqaan oo dadkii isku xaafadda ahaayeen iyo bulshada isla jireen waxbarashada isla kula jireen degmada joogo ayagaan nooga sheekay taariikhda kulli adinkana soo wareysateen aad aan u faraxsanahay madaxweynaha Soomaaliya oo wadanka wax badan ka soo qabtay 4 sano joogay iyo intuu ra'iisul wasaare ahaa inuu degmadan ku dhashay oo taariikh fiican ku leeyahay oo waxbarashadiisa ka bilaabay noloshiisii ilaa heerka gaaray aad aan u faraxsanahay